objective weeyaan arinta koowaad waxa weeyaan gabadha horta ma la furay واي سؤال هذا سؤال من هو راقبي وزيرة واي وزيرك محوها حسن وزيرك وزيرك عجري يشك مع وزيرك عافماتك وحنا وجوه الرئي وزيرك التعليم ده وحنا وجوه الرئي وزيرك دليرة يا جامعة واي صدقوا صومري وزيرة وزيرك دليرة وها تعليمه النقدي كذبه النقدي وزيرك حاولي عافماتك وحنا وزير لو يقانو سوبرمان وزيرك وزير هذا ايوه واي حسب علينا ما حق جامعه واي marka jaamac gabadha uu guursaday si sharci uu guursaday waay laakiin si sharci loo mafulin anu maadaama aan sheekh hadii taqaano kana shaqeeyay maxkamadda dalaaqa furitaanka islaamku waa afartan nooc ku jira leesho lambar 1 waxa radaa kalimatu talaaq waxa furan ninka gabadha qofkiiba afka kaga dhawaaqay waay soo xora rasmi waay laba gabadha dalbataan khulci baa dhata waay gabadhu marka dhibaato sheegataa way dalbataa waa laga furaa dhibaatada baa la eegaa marka haday jirto waa la qiimeeyaa waa laga siiba waa labo تصدق حد بيجي نروح فسخ لا اسك فسخه ولا لبدا كربا فسختا ما فسخا عيب بالها لي ان markii hore qarsoonay nin aan waxba lahayn baa gabadhu guursanaya gabadhu wuxuu ogaaday inuu xijiri maniga okay waa laga fasaxaya amba gabadhu meesha dambe tahay ninkii uu ogaaday fasaxaya si rasuul gabadha loo dhisay oo lahayd maartay waxaan raado xadaanka okay hoosta ku qarsanaysi ima sheegin bukeeri guriga ku laba nabiga sallallahu alayhi wasallam way fasaxantay ma la isku furin wax la isku ceeb baa la isku qariyay okay arinta afraad waxa la tatliiq qaadiga kala fura jajka kala fura wuxuu qiimeeyaa dhibaatada labada jaanib in wada socon karin jaamac iyo maartay haybado furitaankoodu sharci ma ahayn waxa ajalad baa dadka la dhageysiyay inuu jaamac waxa naag la sameeyay barnaamij khaldan islaamka dhexdiisa iyo dhaqanka Soomaaliga iyo dhaqanka reer Djibouti barnaamijkii marka la fidiyay dadkii way rumaysteen barnaamijkii markay rumaysteen ninkii waxa lagu yiri gabadha fur uu diiday habeen buu madaxweynuhu yahay wuxuu soo qaado faylal siyaasadda caawan ka wada hadlaynaya ninkii faylal buu qaaday wuxuu tagay guriga madaxtooyada waxa loo yeeray ninkii askarta xukumayay waxa loo yeeray ninkii mukhaabaraadka xukumayay xasan dhacdo waxa loo yeeray qaadi meesha fadhiyahay madaxweynihii baa la soo fadhiistay waxa lagu yiri gabadha fur kadibna waxa la sara qaaday meel ba inta la furay bay xaasigii islaantii iyo gabadhii wada ka soo galeen indhaha loo geeyay waxa dhig gabadha fur afka ka dhawaan furay xuru wajacala gabadha fur iyaduna xataa waqti wajacashay waxa la sheegay meel qaadan marka maxaa lagu simaxdo الطلاق المكره طلاق القفك لو قصبه فريتانك لو قصبه علمadu waxay dhahan furitaanka qasabka muu dhacaa xanaafta bas mid xanaafaya uu dhacaa afar saddex jumhuur waxay dhahan ma dhaco واقع ما dhici karay laana waa furitaan oo qof rabitaankiisa ku jira labadii qof rabitaanku ma jirin marka furitaankaasi asalku waxa weeye gabadhu ma banaanay ba mise wali banaanay maaha sharcan waa in la hubo oo la balaariyo arintaas oo kaymo marka Sadiq John gabadhu naga soo doonay hadda reer Djibouti tahay gabadha soo doontay ma hubisay oo su'aal in madax banaantay sharci baa jira dhaqan baa jira diin baa jira waxa jira waxaan taariikh baa jirta gabadhu ma taas waa mid kood weeyaan mid labaad waxa weeye maanta gabadha waxa soo doonay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu ka soo doonay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland weydiistay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland wuxuu yiraahdaa hadaan anigu ahay madaxweyne meeran hadaan anigu ahay reerka gabadha anoo ku hadlaya magaca aabaheed adeeradeed iyo walaalaheed gabadhii waxaan leenahay helaha waan siinay su'aal ba mar bisha ka dhalatay su'aasha ka dhalatay waxa weeye anigu abtu abu dhaha abtinimadaasi waa abtinimo guud weeyaan waa reesha isxaaq waa meel fog weeyaan abtinimo hoose ma taasi ma si galeno culumad dhahay laakiin abtinimo hoose ma aha abtinimo ka sii hoose jirta abtigeedu runa jawaab oo maartay meesha fadhiya ma fadhiyo taanka wax kale weeyaan meesha dadka loo yeeray waa dad khaas ah sheegi doono marka taasi waa mid labaad midda saddexaad ee muhiimka wax weeye waxa dhinaca midita ka fadhiya dhinaca bidixda waxa ka fadhiya Muuse Biixi adeerkeed Yuusuf Umar Geelle
waxaa ku xiga qof aan garanayn taswiirta laakiin waxaa dhinaciisa walaal adeerkeed Saciid Cumar Geele dhinaca saddexaad Caynaashe Ismaaciil Cumar Geele fadhiya dhinaca kale waxaa fadhiya Nagiib ay hooyo walaal uur hooyo ay yihiin ayaa fadhiya taswiirta waxaa ka maqan nin kale oo muhiim ah oo Liibaan Ismaaciil Cumar Geele loma yeedhin waa gabadha walaalkeed arooskii horena waa albaabka laga ceshay kana loma yeedhin meesha Muuse Biixi diyaar laga soo bixiyay la soo qaaday Liibaan baa ka maqan oo gabadha la dhashay Liibaan moodu ku jooga marka ma jooga magaalada waa jooga Djibouti laakiin qadiyadaas diiday baa laga yaabaa ambase reerka raalli ka hay ma dhalin xaaska madaxweynaha amika uu qabo ninka ma dhalin gabadha hore u dhashay yaa hore warbuga dhada hore ugu dhashay marka isaga marka reerka kamid ma aha marka ma joogo reerku wuxuu leeyahay nin aabaha reerkan geel la betel nin aabaha wali waa ninka shirkadda korontada xukuma jaamac Ali Geele dhada ma joogo isaguna ma joogo ajiib aslan ahaan taswiirta kama arkin ma joogo ninka la dhahdo Xasan Saciid oo mukhaabaraadka xukuma meesha kama muuqdo isagana lama keenin sawirka markaad u fiirsatid sawirada dadku nala arkayaan waxaad arkaysaa ninka la yiraahdo Yuusuf oo madaxweynaha walaalkii Sacad waxa jeeda Saciid inay aragma inay yaaban yihiin yaaba haysta meesha masraxiyada ka dhacaysa iyo ruwaayada ka dhacaysa ee gabadhoodii lagu dul sameynayo waxay tahay bay fahmi kari laayeen arintaasi waa arinta afraad waxa weeye guurka maxaa keenay guurkan wuxuu soo ku hayaa jaadka ka hadlayna qaadkii sharikad weyn baa la sameeyay oo qaadka Kenya ka shaqeysa sharikadaasi waxa kamid ah dadka sahla John baa kamid ah gabadhan uu John guursaday waxa loo dhiibay sharikada bixisa dadku marka ay shaqada hawlgab noqdaan lacagtooda ayaa maamula gabadhan dadka reer garooba oo milyaaro lacag maamusha lacagtaasi imika waxa dadkii shaqada reer garoobay waxa shaqada shaqada ilaa 2024 laxwa loo mahayo meesha way ku dhacay waxa sida guuriyeen waa Saadiq iyo gabadha marka waxa guurku waa guur manfaci ah ma siyaasi sadku macnayaan guurku waa guur dhaqaale aqalka madaxweynaha waa meel lagu sameeyo dhaqaale wayaan ninka dhaqaale loo sameeyo yaqaan way soo jiitaan wayna heshiyaan dad baa yiri madaxweyne waxa guriga looga dhisay Djibouti Saadiq John ma gabadhan waxay leeyihiin afarta uu madaxweynuhu dhalay iyo laba guri oo kale ayaa ka dhisan guriga madaxweynaha ee gaarka hortiisa ka dhisan oo la xiray guriga weyn baa soo deglay oo laga saaray jaamac wasiirka hore laga saaray marka Saadiq waxa weeyaan waxa kale oo ina ku darnaa Saadiq waxa magacaabay madaxweynihii hore Farmaajo wuxuu magacaabay inuu cilaaqaadka askariga ee booliska Djibouti iyo Soomaaliya ka shaqeeyo Saadiq markaa wuxuu samaystay uu ka wareegay booliska wuxuu xiriir la yeeshay ilaalada madaxtooyada Jamhuuriga markaa Saadiq wuxuu noqday nin Djibouti ay tajniidisay ay shaqeysay oo Soomaaliya ka shaqeynay wadakii furfuray dawladii Farmaajo arrin kale oo muhiim ah maalintii ugu dambeysay qodobada madaxweynaha akhrinay wuxuu yiri madaxweyne Xasanow waxaad riday buur weyn buuro waaweyn baad naga dumisay Ismaaciil Bayri buurta ugu koobaad dumiyay waa Farmaajo waxa lagu dumiyayna waa John iyo lacag Djibouti taala oo maartay dad ay ka shaqeeyaan dawladda cilaaqada leh oo tujaar ah waxaas oo dhan baa la qaaday waxa lagu furay waxa lagu dumiyay Farmaajo marka farxadda weyn ee Ismaaciil ka muuqatay maxay ahayd iyo dhalinyaro badan oo qaarkood inay tashay xukumaan ka muuqatay maxay ahayd shaqada Xasan uu qabtay bay leeyihiin حسن شغال سجى قبضة كرسي سوق قبضة ساس يقوى ركيان. أوكي بومبونتا إيو ورباهنتا إيو قيلدانتا إيو سوحن كفرها بضانه محا أي تهوي شديد. لكن قبل وقت الجورسين شري إنك صارت الجور كحبة كخدنا هذا. لقنا حاول الجورسين شري. لكن محا بوق أنت على جزء عبد أنت على محايته. وحاجة لو حلا هذا nin la yiraahdo jaamaca oo wasiir ahaa oo gabadha qabay oo xoolo badan u urursaday oo dadka la leeyahay madaxweyne doonayaan oo kale hoosta laga yiraahdo ayaa lagu dilayaa waa dagaal siyaasadeed
waxa qalbigiisa la dilay waxa suuqa soo galay ninkii wadnaha xanuunay dhaqtar dhigay baasaboorka laga qaaday ma bixi karo marka ninkaas waa dagaal waxa dhahdaa dagaalka ciyaal suuqa xaaska wada dagaal dumareed weey marka waxa lagu hayaa ninkaas weerarka lagu hayaa oo loo weyneenaya oo khatar laga dhigayaa oo wax weyn laga dhigayaa waa runade gabadh madaxweyne arooska uu muuqanaya marka laga sheekay waaye ana soo gabagabeynaya su'aasha waxaan rabaa inaad 1 minute qiyaastii aan ku weydiiyo xiriirka shiinaha oo imika soo galay Saudi Arabia waan hore u dhicin bal iyo rita taabo warta akhi shiinuhu waa dawlad weyn sadaqtay maraykanku ma dhawta Pentagon wuxuu soo saaray shiinuhu waa awoodda ugu adag ee dagaalka inagu soo socda mustaqbalka shiinuhu marka awal wuxuu ku meerisanay qaaradda Afrika wuxuu yiri meesha oo maraykanku ka daaqay aad waa khaliijkii shalay wuxuu la shiray boqorka Sacuudiga iyo dawladda Sacuudiga madaxweynaha shiinuhu maanta wuxuu la shirayaa wadanadii khaliijka iyo wadanadii carabta oo 16 boqor madaxweyne marayaan arintaasi waxay sameynaysaa wax weeyaan waxa uu yimid shiinuhu aqalkii oo ku lahaa dawladda maraykanku bariga dhexe China yimid ay albaab soo garay qaaradda Afrikana hore uga la baxay reer galbeed imika marka wuxuu ku bedelay madaxweyne Biden inuu u yeero Afrika oo Washington isku yimaadeen oo lala hadlo oo loo sheego duruus badan loo aqoon dadka Afrika hogaamiyaasha waxa la diyaariyay aqoon-yahano badan oo aniga wax la soo xiriiray waxa la leeyahay kaalay la hadla madaxweynaha Afrika u sheega waxaad ka rabtaan aqoon-yahanka soo baxay Afrika sanad uu sii loo maamulay adduunka si kale loo maamulay laga leeyahay marka waxa yaab kale waxa weeyaan waa dhaqaalihii adduunka ugu weynaa iyo dhaqaalihii carabta ugu weynaa amba dunida batroolka soo saarta shidaalka ugu weynaa iyo maanta wada shiraya waxa la leeyahay boqolkiiba 20 dawladda Sacuudiga waxay tahay maalgelinta ka socota Shiinaha dhexdeeda leh shiinuhuna wuxuu doonayaa inuu keeno 15 shirkadood oo kuwa waaweyn ah waliba kuwa dhisan dekedaha iyo bararka iyo soo wadaa shiinuhu wuxuu kaloo soo wadaa soo saarka petrol Aramco Mareykan iyo wax loo ahaa qayb u qaadanaya ajib taana uu soo wadaa laakiin madaxweyne Biden afayeenkiisu wuxuu yiri Sacuudigu waa muhiim China nagalama bixi karo marka dagaalkii weynaa ayaa halka ka bilaabay waa hagaag aad iyo aad baad mahadsantahay Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir shukran barakallahu waa dawadayaal waraysigaasina intaasi ayaan ku soo koobiyaa kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo aad wada taqaanin oo nin daaciye aqoon-yahana arrimaha xiriirka geeska Afrikana ku takhasusay dawadayaal Sheekh Cabdiraxmaan mar kale ayaan idinku soo celin doonaa barnaamijyo kale oo ku saabsan geeska Afrika iyo wixii ka soo cusbanaada inta ka horeysa waa Ali Xalaali oo dhamaantii badi kaga tagay inta barnaamijkan ku dib u kulmi doono sida iyo nabad geliyo